بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في الجود لكن وضع برامج كم ولا عالم كورتل كراضي لأن دور برامج كان كدوركم سينك كل دنتان سينك حنم بكم ده أردوغان وليب مركزي لفلانيس بوقش كديرة وإمارات العربية وليب إثيوبيا يبرامج كسينك حينا السوكلا برامج كبار سينك بولو دنتان سينك حينا وصوماليا وليب يقل مرحلة حساسية يدنا مركب في قدس الشدالك وس مركزي هكودي هني الصوماليا يولو وربحنتين قدام بيتي ففاهنتين قدام بيتي يا مركزي مركبكاسي كسابسن يا برامج كسين كان وانا سينك بولو دونتان وبرامج كأمور عالم كورتل كرلادي وليبا سوكلانا سينك حينا وانا سينك بولو دونتنا وأوباما وليبا سوكالا الموقال انسورية دو مركزي سوكوليني غايسيو لحسي او ترام سوكفافي بارتيس بولشدا برامج كه بولو دونتان سوكالا وليبا برامج كان سينك حينا حوق أسوبا مركزي هاو كورتي قرشو مريكان كإيران يانا برامج كسين كاينا سينك بولو دونتان سومالي وليبا سوكاليا فضاحي أنا خط ترين أوتوسي ومركزية اللوالة داسا تركيا لندورا سندوركو فسان كده ولا برامج كمر عالم قرتل كلادي anshuurta macaashka shaqaalaga may waa anshuurta macaashka shaqaalaga anshuurta macaashka shaqaalaga may buha anshuur lagu qaadaw beesada ee xuquuqdiisa shaqaalaga ku helaw shaguusan haaye qoflan shaqayo gudo koonfur galbeed Soomaaliya sada mashaarka gunnada iyo faa'iidooyinka shaqada gadarka anshuurta qiimo anshuurta wariga ka salaysanta madba heerka dakhliga qofka tusaalaha hooba qofka mashaarhan qaadaw eber ama $100 malku fada wal anshuure hooba qofka mashaarsheen dhahay $101 ilaa $500 wali lagu fada doone boqolkii billi hooba qofka mashaarsheen dhahay $501 ilaa $500 wali lagu fada doone boqolkii 12 hooba qofka mashaarsheen dhahay $501 ama isku badanyi wali lagu fada doone boqolkii 8 waajibka lanshaqayaga yabal kastu suku jare anshuurta ka waajibta shaqaalaga wali inuu si toos ah ka wareejiyay wasaaradda maaliyadda ganaha hoob anshuurta waqtiga lagu biiwaay wali ku dhaladaas ganaha dhakama boqolkii 10 muhiimadda anshuur biyowka anshuurta wali lafdhabarna ta horumarka dalka sugowka amniga iyo biyowka adeegii bulsho hufan fariintan wali asiinku qoytay wasaaradda maaliyadda dawladda koonfur galbeed fursado toddobaadka ee caalami hospital waliba soo bandhigay fursado toddobaadka ee gaarka bulshada leenka fududay hello adeegyada caafimaadka oo tayo leh qiimo jaban ama bilaash sabta maalinta qalinada indho iyo la kulmowga dhakhtarka guud ahaan waliba ay tato beesalaange lagu bilaabo kooda bilato miilamaad ilaa iyo 3 bilato miilamaad 2025 ahad la kulmowga dhakhtarka ciyaalka 50% waliba ay tato qiimo dhimise baaritaanada ciyaalkana 15% qiimo dhimiso isniin maalinta nadaafadda ilko waliba ay tato beesalaange la kulmowgana waliba ay tato beese meel baaritaanka ay tabeesa talaada maalinta qaliimada dhuunka sanka iyo dhago iyo waliba nambarka dhakhtarka guud ahaan waliba ay tato beesalaange arba maalinta raajada waliba ay tato beesalaange kaliya lambarka dhakhtarka iyo beese khamis maalinta qaliinada kaliyo iyo kaada mareenka iyo nambarka dhakhtarka guud ahaan waliba ay tato beesalaange jamac lukulmowka dhakhtarka hanraabta waliba beesalaan computerka hanraabta uurka leh waliba ay tato beesalaange qaybta hanraabta waliba to furun fiire gaare intii la ku jiro toddobaadkan oo dhan tumiko galabnimo ilaa iyo 4 saac habeenimo lukulmowka dhakhtarka hanraabta waliba to beesalaange talaalka cagaarshowga iyo talaalka tiifowgana waliba ay tato beesalaange dhammaan maalmood toddobaadkan waliba markaasi ayina haano la helo kora fursado waliba iyo darar doona ilaa iyo 3 December 2025 هنسنوف الجرود اللي دجمال من نمية مركزية تا وحتى رتيه كيد انت تومية شنتا بالله ما عاد لمدكم لباتي لتلين دراسة دركوا في سنة كده وضع برامج كمر عالم كرتل كلاذي قبله والله كده التركي رجب داي بوردوغان ولي بيسون مركزي سو أنا بوغشو سو كسيادة دوني إمارات عربية ولي إثيوبيا والله كتركي رجب داي بوردوغان ولي بتضبط كهدر رسول بالله واي سفر رسمي أو مركزي سو كسيادة ودل كإني سيادو كإمارات عربية ولي إثيوبيا سيدو شاعي مدى حريركي ولي ورفافين دولة تركيا أردوغان يولي بمعلنة إسنينتا بريه مركزي بوقضو دونا مقالة ودبي مرسون سوكولون كالبال ضدونا مدحينها يا مركزي
ee dalkaas lamada hogaamiyana la filaynaya markaasi ku wada hadlaan xoojinta xiriirka waliba iskaaladowga lamada dal gaar ahaan dhiniyada ganacsiga maalgaladowga tamarta amniga iyo waliba horumarinta dhaqaalo soo kala kulan jeena la ka falanqeeyo doona xaaladda ku jirta gobolka bariga dhexe Afrika iyo waliba umuuro kale markaasi caalamiya intaas kureed maalin talaada oo hay'adda Turkiyana safar doona caasimada Itoobiya Addis Ababa kulan martiqaad rasmi ah markaasi isu kooyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed boqoshan yana markaasi oo xoojiya xiriirka si kobcaya dhaxay Turkiga iyo Itoobiya iyadana la falawni diirada la saaray iskaaladowga dhaqaalo ganacsiga kaabayaalka dhaqaalo warshado iyo umuuro horumarinta wararka sheegay in markaasi intii la guud jiray safaradan la saxiixay doona heliisi iyo dokumenti dhowr oo horey markaasi la dhameystiray wada xaladayo hanasona la xiriir biliirinta iskaaladowga iyo kobcinta doona wadaaga ee Turkiga iyo lamadan dal boqoshan iyo waliba markaasi la kaaray ama la sheegay ku turjumasa dadaalka Turkiga isu xoojiyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee ganacsi iyo waliba kan istiraatiijiyad ee isu leeyahay dalalka khaliijka iyo waliba qaaradda Afrika dhanka Soomaaliya waliba markaasi fadahaatay khatos markaasi maraakiib iyo waladaas Turkiga wasiirka dekedda iyo waliba gaadiidka badda Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur ayaa waliba sheegay in sameynta khatos maraakiib iyo dhaxay Soomaaliya iyo waliba Turkiga markaasi naqdaasa arrin istiraatiiji maadaama ganacsiga lamadan dal isu suubiyo on korore wasiirka ku hadalay shirka wasiirada gaadiidka iyo waliba ururka iskaaladowga islaamka oo ay siilinka soo ku dhiislta Istanbul yana sheegay heerka ganacsiga hadda jar markaasi isu kubada awood nidaamka gaadiidka jira khadka badda tooskana la filaynay iyo markaasi iyo amniye raayeen kharashaadka dadajiyona gaadiidsiyo ku badeecdo soo karaan isu kordhiyo muga ganacsiga lamadan dal shirka oo ay siiyaan markaasi diirada la ka saaray xiriirka gaadiidka iskirnaantii waliba horumarinta kaabayaalka dhaqaalo iyo iyadoo markaasi sidoo kale la ku hadalay muhiimada iskaaladowga waliba adkayso silsilado saxayda caalamka doorka istiraatiijiga Soomaaliya hadda meeta wasiirka waliba tilmaaminaya Soomaaliya markaasi ka taala waa meel juqraafi ahaan iyo muhiim ah isla markaasna ay tamarin iska hiro Afrika jasiirada Carabta koonfurta Aasiya badweynta Hindiya waliba Xuseeni amniga ganacsiga caalamka si toos ah ka hirinya amniga xeewa Soomaaliya isla markaasna iyo markaasi xasiloonida geeska Afrika iyo muhiimada badda Aasiya waliba Hindiya degdeg Soomaaliya sidoo kale aan adeega sadalal markaasi badan lahayn oo yakeela bariga Afrika ولما نلقى شيء بالليرنت أودد كده سليم حوجية جناعسي قبلك هذا بواقع وزيركم مركزي خد بدأ لما يستلم كجدي شركة IC. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a great honor for me to address this distinguished. sharaf weyn ayay ii tahay inaan khudbad ka jeediyo kulankan qiimaha leh ee shirweynaha labaad ee wasiirada gaadiidka ee ururka iskaashiga Islaamka. marka hore waxaan u mahadcelinayaa dawladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Turkiga sida sharafta leh ee ay u martigeliyeen kulankan muhiimka ah iyo soo dhaweynta diiran ee ay u sameeyeen wafdigayga iyo xubnaha ila socda. habeenta heerka sare ah ee Turkiga ee shirkan waxay muujinaysaa hoggaankeeda joogtada ah iyo sida ay uga go'an tahay xoojinta iskaashiga dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka. waxaan ku kulannay mowduuc waqtigiisa ku habboon oo macno weyn leh xoojinta isku xirka gaadiidka si loo adkeeyo walaaltinimada dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka. mowduucani waxa uu ka turjumayaa xaqiiqo muhiim ah oo asaasi ah isku xirnaanta ma aha oo kaliya kaabayaal waa midnimo barwaaqo wadaag ah iyo awoodeena wadajirka ah ee aan uga falcelino dunidan si kala qaybsamaysa. maanta nidaamyada gaadiidka caalamku waxay wajahayaan cadaadis aan horey loo arag. carqaladaha silsiladaha sahayda xiisadaha juqraafiyadeed saameynta isbeddelka cimilada iyo caqabadaha amni ee taagan ayaa weli tijaabinaya adkaysiga marinadeena. xaaladan iskaashi qoto dheer oo u dhaxeeya dalalka ururka iskaashiga ee Islaamka ma aha doorasho, waa mid lama huraan ah. Soomaaliya waxay aragti gaar ah ku soo kordhinaysaa doodan. waxaan nahay dalbadeed leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika dhulweynaha markii loo eego kuna yaal meel istiraatiiji ah oo ku beegan qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan dunidu ay maraan kuwaas oo isku xira Afrika bariga dhexe ilaa Asia. meesha juqraafiyadeed ee Soomaaliya waxay leedahay fursad weyn oo aan kaliya horumar u ahayn dalka balse sidoo kale xoojin karta isku xirnaanta
heer gobol ilaa heer qaaradeedba. Position offers immense potential not only for Somali's development, but also mudanayaal iyo marwooyin, safarka soo kabashada Soomaaliya waa mid gaar ah. 10 sano oo colaad iyo nuglaasho ah kadib, waxaan si tartiib ah u dhisaynaa hay'adaheena, kaabayaasheena iyo dhaqaalaheena. Horumarkan waxaa si weyn u suurageliyey midnimada iyo taageerada saaxiibadeena, gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka. Waxaan si daacad ah u qiraynaa doorka qiimaha leh ee ay dalalka ururka iskaashiga Islaamku ka qaadanayaan xasilinta, dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. Qorshahan dib u soo kabashada iyo isbeddelka qaran, horumarinta gaadiidku waa mudnaanta koowaad. Sanadihii u dambeeyey, Soomaaliya waxay samaysay horumar muuqda oo dhinacyo badan leh. Waxaan dib u dayactiraynaa oo aan balaarinaynaa wadooyin muhiim ah oo isku xira magaalooyinka waaweyn iyo goobaha wax soo saarka. Waxaan horumarinaynaa nidaamyada gaadiidka dhulka ee magaalooyinka iyo kuwa isku xira gobollada. Isla markaana waxaan casriyeynaynaa kaabayaasha duulista oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha iyo adeegyada hagidda hawada si loo kordhiyo badbaadada iyo isku xirnaanta ilaa heer gobol. and modernizing aviation Dhanka kale, waxaan maalgelin ku samaynaynaa dekedo casri ah. Waxaan xoojinaynaa maamul wanaagga badda. Waxaan kor u qaadaynaa amniga iyo badbaadada badaha. Isla markaana waxaan horumarinaynaa awoodda aadanaha ee dhinaca waaxda gaadiidka. Dadaaladani waxay ujeedadoodu tahay in Soomaaliya ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo iyo xarun saadka ah oo soo baxaysa oo ka mid noqoto shabakadaha gaadiidka ee badda ee heer gobol ilaa heer caalami. Gaadiidka badda iyo kan isku dhafka ah ee loo yaqaan multimodal transport waxay fursad waaweyn ay u yihiin iskaashi qoto dheer oo u dhexeeya dalalka ururka iskaashiga Islaamka, iyadoo la isku dabaridayo maalgelinta, lana mideynayo xeerarka, la kobcinayo awoodda, lana wadaagayo khibradaha. Waxaan furi karnaa marino ganacsi oo cusub. Waxaan wanaajin karnaa hufnaanta saadka. Isla markaana waxaan xoojin karnaa adkeysiga nidaamyadeena wadaagga ah. Isku xirnaantu waa in ay noqotaa mid waarta oo loo wada dhan yahay. Soomaaliya waxay horumarinaysaa istiraatiijiyadda qaran ee dhaqaalaha buluugga ah, iyadoo sidoo kale diiradda saaraysa kalluumaysiga, ilaalinta deegaanka badda iyo horumarinta badeed ee u adkeysan kara isbeddelka cimilada. and environmental stewardship. Waxaan si adag u aaminsanahay in kobaca dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka ay tahay in ay isla socdaan. Somalia Mudanayaal iyo marwooyin, considerable waaxda gaadiidka ee Soomaaliya, gaadiidka badda, waxay leedahay fursado ballaaran oo iskaashi iyo maalgelin ah. Sidaasi darteed, waxaan si diiran ugu casuumaynaa dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka, hay'adaha horumarinta iyo bahda gaarka loo leeyahay in ay ka qayb qaataan isbeddelka gaadiidka ee Soomaaliya. Wadooyinka, duulista, dekedaha, saadka iyo kaabayaasha kale ee taageerada u baahan. and advance shared prosperity and regional integration. Waxaan diyaar u nahay in aan fududeyno iskaashi danwadaag ah oo kor u qaada barwaaqo wadaag ah iyo isdhexgal goboleed. Shirkani wuxuu bixinayaa madal muhiim ah oo aragti looga gudbo ficil. Soomaaliya waxay si buuxda u taageertaa dadaalada xoojinaya iskaashiga hay'adaha, wadaagista aqoonta iyo wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dalalka ururka iskaashiga Islaamka. Markaan wada shaqayno, waxaan u rogi karnaa isu soo dhowaanshadeena juqraafiyadeed iyo qiyamkeena wadaagga ah faa'iidooyin muuqda oo u soo hoyda shacabkeena. Soomaaliya ahaan, waxaan taageeraynaa hadalka wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha ee Turkiga ee ku saabsan aas-aasidda xarun gaadiid dhuleed, iyadoo lagu salaynayo go'aankii lagu gaaray shirkii koowaad ee wasiirada gaadiidka ee ururka iskaashiga Islaamka sanadkii 1987. Xaruntani waxay fududeyn doontaa isku xirnaan dheeraad ah
oo u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. aan ka faa'iidaysano fursaddan si aan u adkayno ballanqaadkeena ku aadan isku xirnaan xooggan, walaaltinimo qoto dheer iyo mustaqbal gaadiid oo midaysan oo adkaysi leh oo u adeegaya bulshada ururka iskaashiga islaamka. waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina qiimaha leh. For OIC community. I thank you for your kind attention. dhinaca kale Soomaaliya waliba iyo galay marxalad cusub iyadoo markaasi markabkii qodista shidaalka us markaasi ka wajahaya Soomaaliya. dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo war weyn ay maqli doonaan. Maxaa wasiir maxaa leedahay? maanto kalena madaxaana furaa. markabka qodowka shidaalka ee Agribay iyo geegahan safari biyo Soomaaliya kureed howlo saxmintii hore in fuliyay shirkadda tamarta batroolka Turkiga oo kaaladaas hay'adda batroolka Soomaaliya. markabkan waxa ka baahay dekada tasku ee baladka Marsin ee Turkiga la filan uu sanadada keen ku horeeyay si rasmi ah ka bilaabo qodow shidaal biyo dhuleed ee Soomaaliya markuu sideera ama hadeera xeebo dalka Soomaaliya. way bana si toos ah bilaabo doonana howlgalka qodowka shidaalka. madax ku dareerta dawladda Turkiga iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo si wada jir ah ka sagootay markabka baladka Marsin ee dalka Turkiga taasay muujiyay heerka sare ee iskaalada u kalamada dal ee dhiniga tamarta iyo deersisanta. talaabadan yaa abuurtay rajo weyn oo ka eedan mustaqbalka shidaalka dalka Soomaaliya iyadoo shacabka Soomaaliyeed iyo indhoon haayeen natiijada ka baxaysa qodowkan. khubaro badan yaa aaminsan in haddii shidaalka ganacsi la helayo taasay walweyn ka bedeli karto dhaqaale iyo horumarka Soomaaliya. Soomaaliya geeka ka jarta marxalad cusub oo dhiniga tamarta iyadoo rajo bileeran la kamuujiyay in kheyraadka dabiiciga ee dalkan uu sanagada kowal kabiir iyo kabaca dhaqaalo iyo shaqo abuurka mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Alxamdulillah wa salaatu wassalaam ala rasuulillah wa ba'd. maanta waa maalin aad u qiimo badan. waxaan maaragta dalka Turkiga ka soo sagootinay markabkii qodi lahaa shidaalka Soomaaliya. waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa inaan maalintan qiimaha badan leh aan u joogno. waxaan halkaan uga mahadcelinayaa guud ahaan dowladda Turkiga iyo gaar ahaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamintiisa. waxaan kaloo uga mahadcelinayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo xaqiiqdii dalkaani naftiisa iyo maskaxdiisa iyo xooggiisa u horay soo gaarsiiyeyna hel shidaalka dalka la qodo. marka waxaan leeyahay hambali ummadda Soomaaliyeed aadaan u mahadsantihiin. ulhayka hore dalka Mareykanka waliba suul markaasi soo ku hadalay muuqaal cunsuriyad oo markaasi ku dhiniga isu yaxaasiya oo barta Trump uu markaasi ka faafay bartiis bulshada. ulhayka hore Mareykanka Barack Obama iyo waliba sideed baan ku hadalay muuqaal cunsuriyad oo markaasi la ka daabacay baro bulshada. ulhayka Mareykanka Donald Trump usoo soo sheegay inay markaasi martigeliyaha podcastiga saaxiibtii waliba anshax iyo hore iyo haga jareen mas'uuliyiin dadweynaha iyo hadiyo lumiyaan. muuqaalka weerarka ayaa markaasi waliba ka jaray muuqaal muujay Obama iyo waliba xasjay oo markaasi to daayare taasoo sheentay dhaleecayn biliran oo ku qoyti dimuqraadiyadda iyo jamhuuriyadda jamhuuriyadda. aqalka cadiyana markii hore difaacay muuqaalku soo ka tilmaamay dharafka been abuurka. qoraalku waliba markii dambe la ka eedeeyay shaqaale ku tirsan markaasi la tirtiri. Obama oo la hadalay waa Brian Taylor Cohen kaasoo weydiiyay ulhaykan Korea markaasi muddo Mareykanka qaabka wada hadalka siyaasadeed iyana waliba xigay qoraalka Trump ee kumitaay dhowr muran oo markaasi dhawaandhiyo. muuqaalku waliba markaasi la kulmay cambaareen wuxuu ku qoyay xildhibaano ku tirsan dimuqraadiyiinta waliba qaar kumida jamhuuriyadda. Donald Trump yana diiday in Israel Guinea isku biyo muuqaalka la ka daaway bartiis bulshada kaasoo ulhay koobada muddo Mareykanka ee Barack Obama iyo waliba xasjay iyo kumuujiyeen sida markaasi inay ayeen daanyaro oo kale. Trump yana markaasi sheegay in isu aragana qaybta muuqaalka ee ku hadalaasi qoyska Obama waliba ka eedeeyay xubin kumida shaqaalaha waliba soo ka tilmaamay khalad. muuqaalkana ka jaray barta Truth Social amya ku dhawaad tumila masaadood inkastoo ay jiraan ambaareen biliireen. dhinaca kale Abiy Ahmed waliba soo markaasi isu ku hadalay ama ya kanagay hadal marar badan oo sheegay waliba isu ku hor sheegay madaxda Afrika. dalal kale dad ku badan 130 milyan sida Ethiopia waliba baahanyiin dekada shal doonsan hubiya hormar waaro. yana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed khudbadiisu ka jeediyay shirkii sare ee midowga Afrika
farintiisu indira shirkadda waa shirka soo daysagalada midowga Afrika ra'iisul wasaare ayaan sheegay in ay tahay asaasi loo hubiyo helitaanka bad ammaan iyadana la maro iskaaldoona badon soo kale ba sheeganiya muhiim ah tan dalalka geeska Afrika iyo waladan dekada ammaan oo markaas loo ku talagalay horumar dhaqaale mustaqbalka wala xasiloonida waarasa ay waliba saray hadda waliba ka jarnay marxalad kala guur caalamiya waliba xilla markaas li hubne ana hubin la hayna iyo markaas xooga Afrika waliba Kenya is aaminaad iyo midnimo yaar Ethiopia marar badan muujid xiisadii aan qabto dekada hore abi waliba sheegani 130 milyan qof iyo markaas aan qadana maxaabiis juqraafi abina helitaanka dekada badda waliba ka tilmaamay arin jiritaan muhiim ah oo Ethiopia Soomaaliya waliba yana markaas ay ka birtay gudi muhiim ah Soomaaliya si rasmi ah ka birtay habkii waliba qiimeyntii waliba reedan fiidiyo ka maamul wanaaga Afrika ee APRM linkasow oo ah habra asaasi midowga Afrika dalalka hubno ku ay markaas inay qiimeeyaan isla xisaabtan isla markaasna iyo hormariyaan maamul wanaag hufnaantii waliba tayada waa markaas hay'adiyo dawladeeda Kubristiana la xaqiijiyay intii darartii kalfadhiga sodayshanaad ee madalla hogaamiyalka dalalka iyo dawlado APRM meelasoon uu lahay ku sukasaha heliisa gurada ka biriste APRM ma hanaan kormeer dibadeed oo markaas la ka fargeliyo dalalka laakiin waa libwa nidaam dawladda iyo markaas istiqraar ka ogolaadayaan in la qiimeeyo siyaasadda hay'adiyo iyo nidaamyada maamul isla markaas silin ogaada meelo horumar la ka sameeyo meelo u baahan reedan habeen yurubtayn tan waliba kulan qaadaysa isla xisaabtan wadaagis khibradeed iyo isbarbardhig wal ku oo markaas in dhaxay dalalka Afrika APRM waa hanaan kormeer dibadda markaas la koro wadamada habaato waliba isqiimeeyo waliba hanaan reedan fiilis iyo markaas dawladda ka gudbeena siyaasadda hay'adiyo iyo nidaamyada maamul ee markaas silin qiimeeya guud ahaan sanadkii barnaamijka mar caalam kwartal kaladan aska sinadirayay أنا سينساري وأمك سنة عبد الرحمن إنك مرة تانية برامج كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحي صبحي كل شوي صبحي عشورته كل شوي صبحي عشورته. أوب هراتن نور مرة كين كوي كان هيرنا سوالن جرب جايو. نيو يركز على أروسين غير كونته همراي سنبي جرت الحمد لله. ما شاء الله نيو هذه وجينا أمام أورتنا إلى فيله سيد حالكي فيلية. ولا لو دكان هذا له فرق قول أشورته إلا قال جودة. سألك قالوا والله ولا إنه ملاه إلهي كيرو إياها اسكو ديبي هذه ما إله ولا. ديبي هذا. ديبي هذا وادو أشور ولا كين كنا كذانا. ديبو جماعي قال ديبي ماي. ساسنغ أرتوي أشورتي ديوشة وقرام بريشة أو كفل مواد dengan wajib تتين سبي. واتير كمية تير كمية الدولة نمط. إلهي قصكو أمني جيك صورة جرينا أروس كسات وأنا كنا جت أمني جسي أي بس صورة جرينا أشورته. عشورتي بي ويبوا قرام بريشة قفل مواد dengan wajib كته. نيو هذا ساس نفكر. رونتاو مير كوما قوم ولا كذا جرب بدال. نبدا كويس. صبحي صبحي كل شوي صبحي عشورته كل شوي صبحي عشورته. السلام عليكم بطولة. وعليكم السلام. ورم بفايتة. وفي الليل الحمد لله. خير ما شاء الله. أيه. فاين إنه النوبة. بيسألك هاي إريتك ورمبو. ريتي في الهايت الحمد لله نبت الإلهي الشلشانة حتى مركي أمبلاست لصاري أنا نمتحن دقاق أمبلاست مركي قاسن أيضا نمتحن دقاق. هاي. ولكن شغل هاي ها. قلودي عن شورت قاعدة سي غريالك كويس إنكين كويه. يكورجلي فضاي. هان أنشور لي غريان أنشور ملو أنشور أنا إيدي دقنا ganacsitaa meel oo anshuur lay guraan mi geeriti lay surnaadeen anshuurtun la qaada mi geel aruuriya faa'iidin un haneenka nagaan ma ku faa'iidaan markasta la noo aruuriyo ganacsitaa miyaan idee degan ma anshuur loo qaado ma sadaba ka fiicawta anshuurta faa'iidada la tamaaba u shiidiya anshuurta ma ba goroto faa'iidada yeelata hata gabarta adakayla dhalati jida la marsi jidka seehay madiisin marsiyaasay raase ha runtaw isbitaalka firiyahay ambalaastana beesameyn oo qaadna laamiyadana iyadan faylay bal fiiriye ku fiirsado doon inta aan bi warka ana kiin sheegaysa fayl aan qaaday canshuurta eed galbaga aan ka hay awlaada iyo iskuulka iyo isbitaalka walan taraas hay aragaan haye batuulo kootabay niida ka hay canshuurta faa'iidada yeelata isbitaalay iskoolay walan taraase saasaki oga nabaday salaam hay aritan eedan ma hasanta haye aritan ka kuban صبحي صبحي كل شوي صبحي عشورته كل شوي صبحي عشورته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا وضع هكذا وضع xafiiska dakhliga ee wasaaradda maaliyadda walaalahay dhowna may baan ku helay inuu dhiibna canshuurta waayahay inta shurbidan ku haytay maha marka aan siin sharxa in fadheeda yey fadheeda inta beesa may sheeno beesada waliba la kashabay account dawladeed aan siin sheega doon waliba maraase process shaldugo maahan oo marka meel faday shacabka dawladda aaminta sidii wadamadoona horumarka deera lahaayeen dhamaantana quwada shaqeeyna lambiirado nin lahayna bahado manile